degan meesha ka qaad hayaan dhahay waan ka qaaday lacag ay ii sheegtay $5,000 waxay siisay $2 aan cunug ku qaado kulanti wacan daawadayaasha sharafta leh ee ku xiran janalkan Shabeellaha ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa dhacdo la yaab iyo ama kaag badan laba qof oo dumar ah kuwaasoo ah kuwa xada caruurta oo gacanta lagu soo dhigay mid kamid ah oo sheegtay in halkii cunug ay ku qaataan $5,000 haddaba halkee ayay ka dhacday dhacdadan yaabka badan sideesa loo soo qabtay qooleysatada xada caruurta yaryar inta aan ku bilaabin warbixintan xasaasiga ah haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee aad ku timaado janalkan waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad janalka subscribe aad saarato furtana gambaleelka si ay ku soo gaaraan barnaamijyada warbixinada iyo wararka degdega ah ee aan halkan ku soo baahiyo waxaa magaalada Kismaayo lagu qabtay laba qof oo dumar ah kuwaasoo caruurta ka xadi jiray magaaladaasi shalay duhurkii ayay xadeen wiil yar oo 2 sano jir ah kaasoo lagu magacaabo Cabdullaahi Carab ehelka dhalay wiilka markii ay waayeen wiilkooda waxay bilaabeen baadidoon xoog leh ayagoo dacwad u gudbiyay xarunta ciidanka booliska dadaal dheer ay sameeyeen laamaha amniga ugu dambeyn booliska waxay gacanta ku soo dhigeen laba eedeysane oo kala ah Samiira Xasan Maxamuud iyo Shamso Sheekh kuwaasoo ah tuugtii xaday cunuga yar Samiira Xasan Maxamuud oo afkeeda ka qiratay inay tahay qofka xaday cunuga yar ayaa sheegtay in loo balan qaaday haddii ay soo xado cunugan yar in la siinayo $5,000 walow markii ay soo xaday cunuga ay sheegtay in la siiyay $2 oo kaliya islaantan waxay dhahday cunuga meeshaas uu degan meesha ka qaad hayaan dhahay waan ka qaaday lacag ay ii sheegtay $5,000 waxay siisay $2 aan cunug ku qaado bis meeshan aan ka baxay gudum aan tagay markaan soo wacay waxaan dhahay cunugii waan wadaa intee geeya sanina ku imaan doona bulguud marka geesisgeeska nina ku imaanayo ninkaas diib sida ameesho tagay ay intaas oo qofan koon dhigi kari laakiin islaantan aan dhahday lacagtan ku siini qaad cunugan Farxiyo Cali Maxamuud oo ah hooyada dhashay wiilka la xaday ayaa sheegtay in ay aragtay wiilkeeda oo ay wadaan booliska dibna loogu soo celshay in oohin ay afka furatay farxad darteed waatan hooyo Farxiyo oo ka hadlaysa sida uu dareenkeeda noqday markii loo keenay cunugeeda yar cunugayga shalay 2 saac ayaa uga dhumay guraha taga inta ka dhaca nag si ilaa xalay 4 saac guryaha dadeed ayaan baareynay markay tahay 4 saac ya bar ayaa wiil baadiyaha iyaan ka soo sheegay wiilashii soo daala ayaa hadana u naqan war wiilka halkaas baa la bartay iska xakameeyeen alxamdu shukru wiilkii jooga la yiraahdo maamo waa lagu keenayaa adeerkay baa raacay wiilkii la keenay aragtida aan arkay raggi iyo wiilashii iyo cunugii ooyin ayaan ooyay farxad oo ooyin ay iga keentay hadda alla u sugnaa arrintan ayaa ku soo aadayso xilli kooxo ka ganacsata caruurta ay muddooyinkii dambe ku soo badanayeen bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya oo kuma santahay daawashada muuqaalkan daawade haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee aad ku timaado janalkan waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad janalka subscribe aad saarto furtana gambaleelka si ay ku soo gaaraan barnaamijyada xiisaha leh ee aan halkan ku soo baahiyo mahadsanid